قرات جامع قرات إسماعيل والله بالله تالله سمان دارا قال حجس بسوقيا حكم كإني قرطان اسم كيوغو سريب جامع سيجفة جامع سيادة البانتي waxaan leeyahay maanta waxba gacanta uguma jiraan waxa lagu yiri aragtidaada iyo dhiigaaga iyo magaraansa maskaxdaada Soomaaliland bay tibaaxayaan wax alla wax tarana nuguma lihid halka fadhiso bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh war saaxiibayaal soo dhawaada maanta waxaan idin hayaa barnaamij naara marka ugu horeysa muuqaalka qabo si share garee page-ka hadaad ku cusub tahay follow saar sidoo kale fikirkaaga oo aan cayahayna hoos noo dhig maanta hadaba barnaamijkan idin haya waxa weey ninkii garaad jaamac Ismaaciil garaadkii guud ee jifada jaamac siyaad ee dhulbahante oo laga shikiyay oo lagu yiri adigu taladaba kuma jirtid waayo hadii aanu tala kugu darsano adigu Soomaaliland baad ugu darasaa waa arrimaha ugu la yaab kale ee 24 saacadood ee ugu dambeeyay ka soo baxay horjoogayaashii laascaano qodobka labaad ee idin haya waxa weey ismadii ma jeerteen ama magaraansa wax garadkii ma jeerteen ee ku sugnaa degmada laascaanood ayaa iyagana loogu baaqay inay si degdeg uga baxaan hadii kale dad aan la garanayn loo dirso doono madaxa laga toogo doono qodobkeena labaad ka weey qodobkeena saddexaad waxaanu ka dhigi doonaa waxa weey berigii dhaweyd dad baa xaabo lagu guray masaakiin dhulbahantaa oo caruura oo 25 jir ayaa lagu guray xaaba ahaan looga dhigay waa kuwii dhintay waa kuwii xabaalo wadareedyo loo sameeyay kuwiiba intay dad magaraansaayay maamul baan ku socday intay yiraahdeen intay dul tageen ay ku yiraahdeen seetihiin shuhadadiyo kolka almacna waxa la hadlayaa dadkii aasnaa shuhadadiyo waxa weey maanta waa la idin khiyaamaya idinka ay maqlaya war arrimo cajiib ah idin sida war arrimuhu ma sahlana arrimaha halka ka taagan magaalada laascaano maanta wax sahlan ma aha muuqaalkan qabo oo iga sii share garee hadii aad YouTube-ka iga daawanaysidna magacaas ay noogu qoran Cabdixakiin Dhaye fadlan tag oo subscribe soo saar waxa weey xaga kor isku soo qaada xaga barnaamijyo saxan soo gelin doona hadii Ilaahay ka dhigo xaga fursadaan siiya xaga Facebook ku yar aad iyo aad baad u mahadsantiin hadaba waxa weey waxaan ku horeyn doonaa waan idin sheekay booday qodob muhiim ah ayaan idin ku horeyn doonaa habeen dhaweyd waxaan idin sheegay in garaad jaamac garaad cali arrin kasta oo uu rabo inuu Puntland loogu daro ee magaraansa dhulbahante ama deegaanada dhulbahante leeyin Puntland loogu daro inuu firdhiyo u dhaxmari doono dad badan baa ila yaabanay ugu lahaa wardhayo waa sidee war waxba warkama haysid garaad jaamac garaad cali waa nin SSC khaatuma raba garaad jaamac garaad cali dadkii u shahiiday ama u dhintay laascaano ama dhulbahante khiyaami maayo hadaba cadeyn baan taa idin sida garaad jaamac garaad cali wax alla wixii uu rabo dhan waxa uu dhaxmarsanaya firdhiye xaar firdhiye ayuu dhaxmarsanaya waa tan cadeyntiisuna intaanan faaqayn bal in yar oo naqayna daawo oo miiska saaran oo lagu riixay in hogaamiye firdhiye arinka loo dhigo oo adigu la yiraahdo wixii aanu xulnay ansix arinkaas sax ma firdhiyena waxa fiican arinkaas inuu iska ilaaliyo xogtan anigu hayo shacabka in wax loo dada ma aha xogtan anigu hayo xildhibaanada waa la xulay wax yar mooyaane 17 weeye ugu yaraan 12 ilaa 14 waa la xulay way hadaba ka waxa lagu yiri garaad jaamac garaad cali ba arrinta nooca iyo habka soo saaray habeenkii dhawaad garaad jaamac garaad cali hadaladiisii ugu saameynta badnaa ee uu noo sheegay waxa kamid ah SSC khaatuma waxa la yiraahdaa in iyada lagu soo biiro ma aha inayna cid ku biirin markaan idin lahaa war garaad jaamac garaad cali waxa weey irbad suuxisu shacabkii dhulbahanto ku mudaya waad ila yaabanaydeen waxa weey anigu xaqiiqada ma garanaysaa iyo halkay wax u socdaan nin waxaan ahay hadallada ay leeyihiin dhandhaminaya waxa weey dad wax ma garata ayaa aniga la yaabana kolka waxaan leeyahay maalinta bayaan la igu dhigin oo nin xaqiiqada og baanahay nin garaadada maskaxdooda la socda baanahay sababtoo ah hadallada ninku hadalku leeyahay hadana ka dhadhasan wuxuu uga jeedo wax garad ma tiid iska dhaaf intaan ka imaado garaad jaamac garaad cali hadaba hadalko kooban waxa uu af macaan waxa uu kula macaamili doonaa dadkii la qixiyay ee hantidoodii lagu ciyaaray ee waxbarashada carruurta laga ciyaaray ee dadkii 80 jiradii lagu ciyaaray ayuu doonayaa inuu af macaan kula hadlo dan kasta
iyo ma garanaysaa aragti kastuu leeyahayna waxa uu dhex marsanayaa xaar firdhiye ama horjooga firdhiye qodobkaas waa qodob kusoo dhawaada qodobka labaad oo ah garaad jaamac garaad ismaaciil wiilkii caddaa ee garaadka guud ahaa jifada jaamac siyaad ee dhulbahante waxa lagu yiri war adigu raali noqo talaba adiga kuu dhiiban mayno waayo Somaliland ayaa ka dhex hadlasa Somaliland aragtidaada iyo maskaxdaada Somaliland baa dhex fadhida haddii aragti dhaba la qaado in Puntland lagu biiro iyo in Somaliland lagu biiro aragtidaada waanu hubnaa oo waxay noqonaysaa in Somaliland lagu biiro waxa weey garaad jaamac garaad ismaaciilow wiil iska cad baa tahay wiil qasqaska marsadaatee adigu halka naga istaag beedhaday nimankii garaadadii dhulbaantay kale saasi ku yiraahdeen taana cadayn baan wataa anigu waxaan cadayn u hayn halkan lama imaado waxa weey garaad jaamac garaad ismaaciil waxa weey waa oday caaqil wali iyo bilo ku dhaaranaya garaad jaamac garaad ismaaciil hadii uu sugayo kaliya inta garaxajistalada Somaliland qabanayo inta uu sugayaa wuu la imanaya kulka garaad jaamac garaad ismaaciil wiilkii jaamac siyaad wiilkii caddaa suldaankii ama isimkii ugu sareeyay jaamac jifada jaamac siyaad dhulbaantay waxaan leeyahay maanta waxba gacanta uguma jiraan waxa lagu yiri aragtidaada iyo dhiigaaga iyo ma garanaysa maskaxdaadu Somaliland bay tibaaxayaan wax alla wax talana nuguma lihid halka fadhiso waa tan cadayntu leeyla daaw garaad jaamac garaad ismaaciil wallahi billahi tallahi Soomaan daaran garxajis buu sugayaa xukunka inay qabtaan waxaan leeyahay garaad jaamac garaad ismaaciilow aniga isimkaygii baad ahayd balse maanta inay kugu yiraahdaan garaad qasqas baad tahay aragtida SNM baad ku shaqeysaa aragtida Muuse Biixi baad ku shaqeysaa waxa kaliya waxaad sugaysaa in garxajis xilka qabto oo aad ku biiraysaa Somaliland adigoo inabadaadii 25 jirka ahaa ee jaamac siyaad xabaal wadareedyo loo sameeyay in maanta sida lagu la dhaqma waxaan ku leeyahay waa wax isinimada ka baxsan waa wax islaamnimada ka baxsan waa mid Soomaalinimada ka baxsan waa mid ka baxsan damiirka hagaagsan ee dadka haga kolka waxaan leeyahay jaamac siyaad see dareemaysi maanta warjifadii jaamac siyaad ee Somaliland wax la lahaayo sidee dareemaysiin xagee maroosiin waxa weyn taasna waxay ahayd heesar ma boy qaaday maanta heestaas waa taagan tahay kolka waxaan leeyahay jaamac siyaadow see dareemaysiin xageed marasiin intee marasiin bal noo sheega garaadkiini guud sawtaa lagu yiri waxba qacmaha kuuguma jiraan war aragtidaadu waa tu Somaliland aragti dhul bahanta ma wadida halka fadhiiso qodobka labaad ee ku dareeya waxa weey garaad jaamac garaad cali waanigi idilaha firdhiye ayuu wax dhex marsanaya oo Puntland baa lagu biiraya shacabkana af macaan buu kula macaamilaya iyo hadalla irbada suuxisada aan ka dhicin buu kula macaamilaya oo ku taagaya hadaba garaad jaamac garaad ismaaciil sidaas lamida hadii Puntland lagu biiriyo wuxuu anigu Somaliland teedii baan ku noqonaya meeshu maanta waa lagu kala tagay garaad jaamac garaad ismaaciil waxba gacanta uguma jiraan oo adigu talin maysid talada dhulbahanta gaarayo na waxba ku malhid baa lagu yiri qodobkaas waa qodobka labaad ee idin wada waxa weey dhulbahanta maanta wax waa fahmi war in badan baan lahayn war wax fahma war wax garta war ma garanaysaa dad aqoon la yeesha war ummadan way idinku guuraya qodobkan idin sida marka waxa weey ismadii ma jeerteen oo lagu yiri war tala dhulbahanta kama shaqeynaysiin tala Puntland loogu biiray ayaad ku socotiinay degdeg magaalada Laascaano uga baxa hadii kale dad aan la garanayn oo si gaar ah u hubaysan oo si gaar ah u tababaran ayaa madaxaydi ka toogan doona dhulbahanta wax waa soo fahmayaan waa halkii ra'iisul wasaare Xamse tartiib ay wax u soo fahmayaan tartiibna way u soo noolaanayaan waayahay taa ka yimaado waxaan tusaya kana cadayn baan wataa anigu waxay waa itus oo itaabsi waxa weey bal waa kan in yar oo naqayleega simada Puntland baa la hadlaya oo ugu horeeyaan waliba simada ma jeerteen wiilka dhulbaantay runteedii ma sheegin kara anaga idin sheegayna maxaa dhagaa dhulbaantay wallahi baata wax waa fahmay baata ragi jaamac siyaad wax waa fahmeen faysateen garaadada hadalkooda ku hadlayaan oo leeyin talow aan wada hadal maxaa idin ka waray waayahay qodobkeena ugu dambeeyo waxaan ka dhigayaa waa kuwii xabaal wadareedyo loo sameeyay dadkii uu garaad jaamac garaad cali
وحابة كوجري كل جوري إنه بطلان كبير ما أنت بس أركتدي سكمل قطو فرمات فردية نحمر صنايو كوجري بطلان وقدريو ضدك وحابة وقد جاي مجرانسا مجرد الأسعار إن سومال لوجا صاروا وحوي وأتي حوار وذريديو لوسمي هذا إني جواد يرى ملها أجسمها وحبرشة كمدة أي شقاقدي اسمها دقنك أما مجرانسا يهرشوجياش على الأسعارات كسوغن شقاقدو دي مقصي أنت يتوتري ذا كمان رقعة واحد تري وحنا صهال ذا شهادة دي حبار وذريديو دي ما بوقنايا وحوي كمان ردا يقدوها 6 سنة الله هذيا حباله بدول تكتي واحد تري من مقلسي شهادة دي والله ذي خيام يا آخر الله ذي خيام مايو آخر اللي حساب تمي دونتي ما أنت قول بانتو بتكلم بالو قدريا تضبيط طبعاً كحل دماغ بال مقرنا ساي لحوليا دوار نصيب دره بالواكني يرلي وقضبك وقصل بدن وأدون كم حال يسفهمينيو إمك وحل سو فهميا أنا أقول إن بدن ما لها ورفح وحفهمه ورمرافقة الله يدكو هاي الله يدكيني الله يدك قدمني ورفهم الربانتو لكن ما أنت وما أنت يفهم لهاين يرون غير ضام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولشانيو وأنا وإذن ما مغلا إذن كاي مغلا ما أنت قبرية ديني بنشوجنا waxaan rabaa marka hore qofku markuu qabriga ku jiro waayahay saaxiibayaal waad leerkiisiin anigu waxay oo dhan wada xaqiiqay haayeen magaaladii Laascaano sawirka ugu dambeeyay idinka tusay wax weey dhammaan sawir afka la wada taagayo war haddii ay isimadii dhaqanku ay isku tare noqon waayeen oo kala aragti noqdeen oo aragti Puntland ku shaqeynayaan qaarna aragto ma garanaysaa maamulka ay sheegeen ku shaqeynayaan dadkii dhulbaantay maxaa u xalaa waxa weey xaaladda ugu dambeysay sawirkii ugu dambeeyay ee laga qaaday magaalada Laascaano ama isimada u taliya waa kan dhamaantood afka la wada taagaya waxaad moodaysaaba in allihii abuuray loo caroonayo kolka waxaan leeyahay war marka hore ayaydaan maskax iyo aragti ku dagaalamin oo dad maskaxdood iyo dad aragtidood bad ku dagaalanteen saaxiibayaal siday waxay kaga tagay assalaamu calaykum balse haddii aad muuqaalkan bilow ilaa dhamaad la joogtay tag YouTube-keena haddaad Facebook iga daawanaysid tag YouTube-keena magacaasa ku qoran subscribe na soo saar intaynu tabinteena tabin lamida ku kulmi doono siday waxay kaga tagay assalaamu calaykum